soo dhawaada saaxiibayaal mar kale maanta halkan waxaan kasii wadi doonaa taxanaheennii noo sii socday aynu ku dhammaatay qaybteennii koowaad markii ardaydu iskugu yimaadeen bannaankeena cusub in la fasaxo inta muuqaalkeennii gudaha ogal waxaa kaa codsanaa muuqaalka lana garajana kan subscribe aadha dooro subscribe ku weyn aad iyo aad baa u mahadsan tahay dhammaan askartii waxay isku dayeen inay joojiyaan waxayna ku yiraahdaan dib ugu noqoda gudaha sababtoo noloshiina waxay ku jirtaa khatar laakiin si lama filaan kubad weyn ay halkaasi kusoo dhacday gudaha kubadaasina waxaa kasoo baxay makhluuqaad yaryar oo dadkii weeraray waxayna bilaabeen inay dadkii si xun u dilaan askartan waxay ku yiraahdeen ardayda dib ugu laabto gudaha laakiin kahor intaysan gudaha gelin makhluuqaadkii waxay hore u dileen arday badan kuwii qoriga haysto keli ayaa badbaaday arday askar badan ayaa lagu dil weerarkaas makhluuqaadka kuwii harana waxay isku xireen iskuulka gudihiisii waxayna aad ugu ooyeen geerida saaxiibadood laakiin xitaa gudo iskuma aysan haysan meel ammaan ah makhluuqaad kale ayaa kusoo jooday legend wuxuu in ardayda har ku qaada gaariweyn halkaas ku baadgareeyo markii dhammaan ardayda gaariga fuuleen gabar baa silma filaan u dhac markaas makhluuqaadkii baa yimid oo si xun u dilay dhammaan waxay ka murgoodeen geerida gabadhaasi legend wuu istaajiyey gaariga laakiin sarkaalka sare wuxuu ku amraya in lasii wado sababta madooy nolosha kuwa ku halis gelino magaalada waxaa nala tusaa iyadoo meel walba dab qabsaday magaaladii gebi ahaanba way burburtay hadda laba gaari ayaa kasoo baxay iskuulka mid kamid wuxuu qaaday ardaydiisi ammaan ah waxayna u qaaday xiro ciidan kale markay halkaasi gaareen ma aysan helin saaxiibadood kale kuwii oo gaarigii kala saarnaa kadib waxaa nala tusay gaarigii kale darwalkiisii waxaa dila makhluuq gaarigu wuxuu rogmay mid kamid a saaxiibadood si xun ay u dhaawacmay markii dambe markii ardayda fiiriyeen khariirada meeshii la rab in loo qaado waxay ahayd meel aad u fog laakiin sida ku cadday khariirada meesha aad bay u fog tahay fogna laguma gaari karin hadda maadaama mid kamid saaxiibadoodii u dhaawacmay waxayna go'aansanay halkaas iska joogaan sababta waxay dareemeen in khatartu halkaas ku yar tahay halkaas xero ciidan kale ardaydii kaloo kala walsanaan saaxiibadood waxay u yimaadeen legend iyagoo ka codsanay in la raadiyo ardaydii gaariga rugmadii saarnaa waxay yarkan guriga habeenka saaxdaan dhammaan waxay ku heshiiyeen halkaasi aadaan laakiin kahor intaysan aadin waxay jidka ku calaamadeynayaan fallaaro si haddii qof uu raadinayo si fudud u helo legend xerada wuxuu la hadlay sarkaalka sare si uu u badbaadiyo ardayda laakiin sarkaalkii wuu diiday wuxuuna yiri howlaha hadda yaal maaha muhiim legend aad u corooday wuxuu aaday taliyaha weyn wuxuuna u sheegay in sarkaalkii sare uu doonayo in halkan iska joogaan oo aysan badbaadin ardaydii kale laakiin taliya wuxuu yiri may waa inaan badbaadinaa wuxuuna aadayaa mid kamid askarta oo lahaa furaha gaari weyn wuxuuna kala hadlayaa furaha wuxuuna si dhuumalays ugu soo qaatay wuxuuna furaysii legend si waaday ardayda uu badbaadiyo markii ardaydii kale xerada joogtay aadeen waxay doonayeen in hadda legend la socdaan gabadhii dhaawac ahayd waxay u baadigooween daawo guriga wayna heleen xilligaas gabar baa halkaasi ka heshay baakad jibiski oo ay rabtay inay cunto iyadoo damac ka gala iyadoo si qorsooda isku qarsatay baakadka jibisiga si aysan cid kale u helin gabadhii jibiska qarsanaysa u cunaysay waxay aragtay muuqaal si qorsooda ku fiirsanayay markay taasi aragtay way caroortay ardaydii kale ayagana bilaabay inay cararaan markay arkaan iyadoo cararaysa waxayna isku xireen gudaha guriga waxayna moodaya inay ka badbaadaan makhluuqa laakiin makhluuqii wuxuu isku dayaa inuu meel walba kasoo galo guriga waxayna isdejiyeen iyagoo isle waa hal makhluuq oo keliya halkan dhammaan waxay isku xireen qol guri kamid ah laakiin daaqadii halkaasi ahayd waa ay jabsatay kaasi armaajo hordhigeen si ay u xiraan wadadaasi si aysan makhluuqaadka ugu soo gelin laakiin legend oo baabuurka raadinayay wuxuu maqlay sawaxan ka dambeeyey waxay ahayd ardaydii kale baabuurka la socotay iyagana waxay la socdeen si ay saaxiibadood u raadiyaan legend wuxuu diiday wuxuuna u sheegay inay dib ugu noqdaan xerada laakiin way diideen waxayna yiraahdeen maya marnaba ma noqon doono waxaan rabnaa inaan saaxiibadeena aan raadino legend aad buu ugu farxay geesinimadoodii dhinaca kale ardaydii guriga ku xirneed midkood ayaa arkay baabuur wuxuuna sheegayaa in ay meeshan ugu bixi karaan laakiin wuxuu ogaa in makhluuqaadkii guriga meel un ku dhumanayo haddii ay sabaxan sameeyaan makhluuqaadka wuu dili doonaa mid saaxiibadood ee si degdeg ugu baxay guriga wuxuuna keenay furo si daaqada ugu furo uga baxo qolka waxayna filim ka daareen qol kaloo guriga ah si ay sabaxankaasu makhluuq u raaco waxay dhabahantii u kaxaynayeen makhluuq
makhluuqa. Markaas sida daaqadii u fureen wayna ka baxeen, laakiin makhluuq wuu caqli badnaa wuuna fahmay, wuxuuna bilaabaya inuu dabagalo. waxayna ogaadeen inaysan dhammaantood ka bixi karin meesha. qof baa halkaasi joogaya suu u helo, waxayna isla gartay in laga tago gabadhii dhaawac ahayd, laakiin iyaduna marab inay halkaasi ku herto. markaasi ciyaar sameeyeen, qofkii qaata Allah ugu yaray halkaasi joogi doonaa oo la dagaalami doonaa makhluuqaadka, intii kalena way bixi doonaan. wiil baa gacanta ku helay ul yar, laakiin wuu qari sababta wuu ka baqayay haddii uu muujin isaga laga tegi doono. markaas wiil kale baa soo baxay, wuxuuna yidhi anigay halkan jooga, idinka iska baxa. dhammaan way ka xumaadeen, laakiin way iska baxeen. makhluuq ayaa wiilkaasi dabagal, isaguna wuxuu ordayay si uu noloshiisii u badbaadiyo. markuu wiilkii makhluuqa ka cararayay, isla wiilkii u caawiyay baa yimi, wuxuuna makhluuqii ku qaboojiyey baraf sababta wuxuuga makhluuqa lagu qaboojin karo barafka. labadoodii waa wiilasha markii hore suuqa cuntada u raadinayay. Legion wuxuu halkaasi la yimid ardayda halkay calaamadeynta falaaraha ka sameeyeen, waxayna gartay in dhammaantoodii meel u dhow ay joogaan. markii dambe labadoodii farxadoodii kusoo laabanayeen, makhluuqii baa mar kale kusoo booday, laakiin Legion ayaa soo gaaray oo badbaadiyey. gabadhii si fiican u bartilmaameysan jirtay ayaa makhluuqaas ku dishay qorigeeda. dhammaan way isku farxeen markay mar kale is helaan. Legion wuxuu dhammaan ardaydii u celiyay xerada ciidanka. markay xerada ciidanka gaaraan, taliyaha aad buu ugu farxay inuu arko. taliyihiisana wuxuu aad u canaantay Legion maxaa yeelay wuxuu aaday inuu badbaadiyo ardayda iyagoon ogolaanin, laakiin maadaama ay dhammaantoodii badqab ku soo laabteen, waxba kama oran Legion. saraakiisha way ogyihiin inuu yahay askarigii ugu geesiyaha badan. si tartiib ah dhammaan ardayda waxay bilaabay inay jeclaadaan deegaanka. dhammaan aad bay iskugu faraxsanaayeen, waxayna aad ugu ekaayeen askar dhar ciidan wataa. dabna waxaa nala tusiyaa shar ciidan. waxaa la sheegay in dhulka ay yaalaan kubado badan oo makhluuqyo badan ay ku jiraan. waxaa la dagaalami doonaa nus ka mid ah makhluuqyadaasi waxaa dilay ciidankeena, laakiin askar badan ayaa sidoo kale ku dhintay dagaalkaasi. saraakiisha waxay Legion ku amreen inuu qaado dhammaan ardayda iskuulka si uu u geeyo goobaha makhluuqyada si ay ula dagaalamaan. markii ardayda ogaaday inay dagaal u socdaan, dhammaan way argixeen. ardayda waxba ma cunaynin, mana saaxin karin si fiican, waxayna xasuusinayeen noloshii hore sidii noloshii ugu faraxsanaan jireen, quraac, waxbarasho, hurdo iyo ciyaar. laakiin hadda noloshoodii way isbedeshay. Legion iyo taliyaha ayaa yimid, dhammaantood waxay moodeen in Legion u yimid inuu canaato, laakiin taasi mahe, wuxuuna u sameynaya cunto macaan. wuxuu ogaa in qofna si fiican u cuni karin xaalada adag cunto. ardayda way faraxsanaayeen, dhammaantood way la ciyaarayeen. Legion wuxuu halkaas ku sheegay inuu garin muddada dagaalka makhluuqu socon doono, laakiin wuxuu u balqaaday inuu ka tegi doono ilaa uu ka neef baxo. markay tan maqleen, dhammaantood waxay dareen qaadayeen. dhammaantood waxay diyaar u hayeen inay subaxdii safraan. Legion wuxuu siiyey dhammaan ardaydii qalab oo ugu warmin qaladkan ka warbixina inta makhluuqa meesha ugu jiro. markay magaalada gaareen, waxay arkeen gaadiid badan oo burburi wadooyinka. halkaas bay ka heleen qaboojiye ka cabeen cabitaan qabow. dibna waxay dareemeen in wax agtooda yaalaan. qalabkoodina wuxuu bilaabay inuu dhaqdhaqaaqo. mid ka mid ardayda ayaa toore gaaray ciyaar halkaasi yaalay. makhluuq ayaa bilaabay inuu dhawaaqa raaco. dhammaantoodii waxay rasaas furan oo way dileen, laakiin qaar makhluuqyada ka mid ah waxay galeen guryaha oo ay dhuunteen. waxayna u dhaqaaqeen guryahaasi say u baaraan u dilaan. markay guryaha baarayeen, waxay askari haweeney hadda aad u dhaawacan, waxayna halkaas ku qarsanayeen muddo aad u dheer. dhammaan waxay badbaadiyeen, waxayna xerada geeyeen. Legion sidoo kale halkaas wuxuu ka helay askari kale, wuxuuna iyaga badbaadiyay. dhammaan ardaydii waxay iskugu keeneen meydkii saaxiibadood gabadhaasi, waxayna ka fikirayeen haddii tan iyaga ku dhici karto, maxaa dhici doona, badbaadi karaa mise. markay dhammaan fadhiyeen cunto cunayeen, gabadhii dhaawacneed ee istaagtay qorigii qaadata, waxayna isku dayday inay disho, laakiin gabar kale ayaa timid oo joojisay. gabadhii dhaawacneed aad bay u hoos, waxayna tiri saaxiibadeed aniga ayaa igu dhinteen, waxay iga codsaday inaan caawiyo, laakiin anigu waan ka caro, nafteydii baad badbaadsaday. hogaamiyahoynin wuu naga tagay. gabadhii joojinaysa ayaa tiri haddii aniga meeshaan ahaan lahaa, waxaa laga yaabaa aniga sidaas yeeli lahaa. Legion ayaa meesha yimid. gabadhii dhaawaceed waxay carootay, waxayna qorigii ku qabatay Legion, waxayna tiri adiga waxaa la mid tahay, adiga waa naga dhaafi doontaa si hogaamiye kasta oo kale, maxaa yeelay hogaamiyayaasha sidaas bay sameeyaan.
markii gabadhii sidaas tiri waxa ay rida xabad markaasyaa taliyii sar isku hordhigay legion xabadiina waxay ku dhacday garabka taliyaha laakiin noloshiisii khatar kuma jirin xabaddu waxay ku dhacday garabkiisii oo keliya legion hadda wuxuu aadaya inuu la kulmo taliyaha wuxuu le inaysan gabadhaasi waxba galabsan waxaasoo dhan waxaas hogaamiye adii kaa horiyey kadibna legion wuxuu u tagayaa dhammaan ardayda wuxuuna ku yiraahdaa dib ugu laabta xerada ciidanka wuxuuna leeyahy mas-uuliyaddeeda ugu weyn waa in idinkanii badbaadiyo ma rabo in noloshiinii khatar u gasho aniga darteeda ma rabo in qof idinka ka mid uu malayn in hogaamiye idin dayacayo laakiin hadda ardaydii wuxuu ogy haddii ay dib u noqdaan oo makhluuqa dilin legion wuxuu heli doonaa ciqaab adagoo ka timid taliyaha sare hal gabadhoo legion dareen u qabto waxay rabtay inay u sheegto wax qalbigeedii ku jira laakiin way xashootay maysan u sheegin markay qolkeeda ku noqotay gabdhihii kale waxay weydiiyeen laakiin gabadhii waxay u sheegtay inay u malaynayso inay u sheegi doonto markay xerada ciidanka dib ugu laabtaan dhinaca kale gabadhii toogashada fiicneed waxay aragtay makhluuqaad imaanay waxayna u sheegtay dhammaan in bartilmaameedka xiga makhluuqyada ee tay xeradooda dhammaantood waxay go'aansan inay dib ugu noqdaan xerada oo ay ciidamo kala keystaan si ay ula dagaalamaan makhluuqaadkaasi laakiin qaar kamid ardayda waxay yidhaahdaan haddii aan dib ugu laabanno waxay nagu noqon doontaa ka hor dambe markaasay legion taliya aad ugu farxeen waxayna aad ula yaabeen si ardayda u caqli badan yihiin waxayna qorsheen wax walba qarax laga dhigi karo waxayna ku dayin doonaan dhammaan halkaasi makhluuqyada jooga markaas bay qarxin doonaan dhismaha oo dhan kadibna waxay ogaadeen makhluuqyada isla xiriiraan legion wuxuu u sheegay dhammaan kooxdiisii inay haystaan 10 daqiiqo oo keliya wax kastoo ay qabanayaan waa inay ku qaataan 10 daqiiqo gudahooda waxayna sameynayaan sawaxan badan si ay makhluuqaadka ugu yeeraan mar waxay jebinayaan muraayada baabuurta marna waxay wacayaan sireniska taasi waxay keentay in makhluuqyada soo aadaan dhismaha intaas dhexdeedii makhluuqaad badan ayaa yimid ardaydii walxaa qaraxa dhisayay legion ayaa u yimid wuxuuna ku yiri waa inay shaqada degdeg u dhamaysaan wuxuuna taliyaha ku jira in ardayda uu geeyo dhismaha kale laakiin ardayda marab inay tagaan iyagoo legion la socdin waxay dareen qaadeen laakiin taliyihii wuu badbaadiyey wuxuuna geeyey dhismo kale laakiin markuu legion isku dayay inuu baxo wuxuu arkay makhluuqyaad badan oo hareeraysan waxay ahayd mid aad og in la badbaadiyo legion sidoo kale aad buu u dhaawacmay legion wuxuu si xun u godoonsanaa dhismahaasi wuxuuna u sheegay dhammaan kooxdiisii dhismaha kale inay qarxiyaan walxaha laakiin ardayda marab inay qarxiyaan dhammaan way ooyin sababta nolosha legion khatar bay ku jirtay wuxuuna ku go'doonsanaa dhismahaasi qofna ma rabo in legion waxyeelo ku dhaco qaraxa gabadhii jecel legion waxay la hadashay iyadoo adeegsanaysa qalabka isgaarsiinta waxayna tiri ma naga tegi kartid waxaa noo ballan qaad inaan naga tegi doono ilaa daqiiqada ugu dambaysa laakiin legion wuxuu yiri wax kale ma haysto wuxuuna dimi qalabka isgaarsiinta kacamihii taliyaha waa ay gariireen isigana ma doonay inuu qarxiyo laakiin markaasii uu arkay makhluuqaadkii ay bilaabay inay kasoo baxaan dhismahaasi gabargiisiyad ayaa u dhaqaaqday qalabkii fogaanta hagaajinta bamka makhluuqyadii waxay hadda gaareen meeshuu legion joogay waxayna hayaan kuwo islamarkiiba doonaya inay weeraraan waxaana arkaan dhowlcadeyntii ugu dambeysay wejiga legion bamka ayaa qarxay gudaha dhismaha waxaana qarax aad weyn ka dhashay dhammaan ardaydii aad bay u ooyeen markay arkeen qaraxaasi taxnihiini maanta wuxuu ku dhammaanay iyadoo nala muujinaya muuqaalkaas murugada leh aad iyo aad baa u mahadsantaa saaxiib yaal haddii halkaa nala soo gaarteen waxaan isku dayi doonaa inaan isoo khalaasiyano taxno kule aad u xiiso badan intaas la gaarin doono intaasi ka dhiman waxaan kaa cusina muuqaalka lano garatina kan subscribe aad dhahdo hadduu hore subscribe kuwen waxaan kaa cusina kan baleyka furtay kuu soo gaaraan muuqaalo aad u xiiso badan aad iyo aad baa u mahadsan tahay